بسم الله الرحمن الرحيم ورانك حدودات وكدح فرعون عضي صوماليا يا كينيا وحق فيرك دلاعي صوماليدو كما قبط وحن دبن دابيا هين حريركي هوري او سو جيرينكا ahaa oo Kenya ay lalahayd dad badan oo Soomaaliya qaxooti aan alla badin bay waxay ku noqdeen Kenya ama ku noolaadaan halkaas taas oo wiiqaysa cududii firfircoonayd oo la rabay Soomaaliya inay wax ku noqoto Kenya waxay ku hanjabaysaa inay dadkaas qaxootiga ama ku nool Kenya ay ka soo xaaqi doonto wadankeeda iyadoo ciqaab uga dhigaysa Soomaaliya dadkaas amiraadooda dhaqaalahooda iyo joogitaankooda waxa u baahan Soomaaliya waayo waa xoogii firfircoona oo la sugayay inuu Soomaaliya biro taas waxay u baahan tahay dawladda Soomaaliya hadda ka jirta inay qorshe dib u dejin ah u samayso una abuurto sidii ay dalkaas ku camiri lahaayeen intood badani wada taajiriina oo Kenya dhaqaalaheeda wax weyn ku kordhiyay dhaqaalahaas oo Soomaaliya ay u baahnayd inay isticmaasho oo lagu camiro waxa labeeya Soomaalidu addiction ama qabatin ayuu ku yeeshay dadka Soomaaliya jaadkuna dhibaatada ugu weyn oo Soomaaliya haysato weey dhaqaalaheedii halkaas u aada dabadeedna musuqmaasuq xoog badan ayuu ka abuuraa Soomaaliya dhexdeeda sidii ninka jaadka ah oo addicted-ka kuwa ay u helo mukhadaraadkaas Soomaaliya dhibaato weyn buu ku hayaa inta haddii laga joojiyo jaadka iyo lacagta aada meesha haddii laga joojiyo lacagta Kenya aada oo jaadku uu ka bixiyo wadanka gudihiisa waxa hubaala nuqsaan weyn inay Kenya ku noqonayso faa'iido weyn Soomaaliya u noqonayso lacagtaasi ay noqonayso lacag wadanka ama la geliyo oo lagu maalgeliyo ama yaraysa tuugada iyo musuqmaasuqa Soomaaliya la degay haddaba si taa loo abaaro waxay u baahan tahay qofka addicted ka noqda waa qof waalan wixii uu addiction-ka ku noqday oo u bartay haddii uusan helinna salma dhigayo haddaba Soomaalida waxa looga baahan yahay marka hore in rehabilitation dib u daaweyn dadkeeda loo sameeyo oo jaadka addiction-ka ay ku yihiin laga daweeyo marka ugu horeysa markii taas u dhacdo lacagta baxaysa oo jaadku saarayo iyo waalida jirta iyo dhaqaalaha la dhacayo jaad lagu dhacayo suur qofku u helo addicted-ka ah suu u helo way baaqanaysaa ayana dib u yagleelida qarannimadeeda wax weyn bay ku kordhin doontaa shacabka Soomaaliyeedna ama ha joogo bari ha joogo ama buux ha joogo meel kasta uu joogo isku calool bay arintaas ka noqdeen arinta xaraashku waa wax kale xaraashka murabada baa ka taagan Soomaali badan waxay qabtaa in hoos loo xaraashay blockska laga qodayo petrolka dawladuna waxay tiri ma lama xaraashine sahankiiba la soo bandhigay macalcuna muuqan doona arintaas waxa inta dheer nimankii ka dambeeyay badaasu inay muran gasho oo u saxiixay oo Kenya ay hadda qiil ka dhiganayso waa in siyaasadda Soomaaliya laga yureeyaa ama ha ahaadeen madaxweynihii waqtigaas ama ha ahaadeen ra'iisul wasaarihii waqtigaas ama ha ahaadeen kuwa saxiixay oo loo diray oo u gacan galiyay Kenya awoodsiiyay inay qiil ka dhigato waana loo saxiixay oo cadayn baanu haysanaa wanadi salaamaya